السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لما نقيرت يوتيوب سلامي عاشقا wuxuu ku saabsan yahay su'aana la soo weydiiyo wuxuu dhahay qofka arday kamid ah wuxuu dalbaday video ayuu duubay videogana wuxuu rabaa maadaama mobilka ku duubay wuxuu u baahan yahay videoga intuu rabo inuu kala baxo inta kalena uu iska tiro soo isticmaalay Camtasia Studio 8 markaan ku tuso kadib waxaad soo furnaysaa Camtasia Studio ayaad soo furnaysaa import ayaad tagaysaa media kadibna videogii ayaad soo qaadanaysaa kadib markaa videoga soo qaadatid dhabarkii ayaad siinaysaa kadibna videoga ayaad dragging waxaad ku samaynaysaa qaybta timeline-ka ayaad hoos gelinaysaa track 1 ayaad gelinaysaa meeshaas kadib markaa geysid qaybtii aartid markaa geysatid kadib videoga ayaad saas diyaar ku ah haddaad marka videoga waxa loo baahan marka hore inaad ogaato videoga inuu soo HD kugu noqdo waa inaad ka dhigtaa 1280 oo HD ah oo jeeda great for video YouTube ku dhahay YouTube-ka ayuu ku wanaagsan yahay kadibna haddaad background u baahan inaad u samaysid background kale ayaad tagaysaa haddaad sawir haysanin kadibna kalarkii aartid ayaa u soo dooranaysaa haddii aad sawir haysatidna sawirka aad u duubanaysaa kadib okay ayaa leedahay kadibna videoga waxaa diyaar ku ah marka inaad inta aartid kala baxdid inta aartidna askari la galaysid marka waxa leedahay meesha imanka tagtid kale split ayaa leedahay videoga highlight-ka ayaa u jeedaa labada video markan kala qaado kana highlight ka saar kadibna delete dheh keyboard-kaaga kadib markaa riixdid undo haddaad isku daydo inaad waa soo celin kartaa laakiin videoga haddii aan wax yar soconno haddana waxaan rabnaa inaan qaybta labaad aan inta dambe ka jarno si inta dambe haddaan u baxnayn oo kale saas ayaa saaraysaa split ayaa leedahay kadibna waa iska delete garaynaysaa keyboard-kaaga delete ayaa riixaysaa marka waa intii aan hore gadaal waa ka jarnay intaan u baahnayn dhaxda waa marka haddii aan meel qalad yar ka jirno waxa leedahay split ayaa leedahay qaladkii haddana intaan ay tagaysaa haddana split ayaa leedahay waad ka jaraysaa zoomna waa ku samaynaysaa inaad weynaysid kadib labada video isku xirisaa highlight ayaa wada saaraysaa kadib right click ayaa leedahay status select media ayaa leedahay isku tolaa labada video hal video ay isku noqonayaan oo jeedaa markaan qodo hal video isku noqonayaan haddii aan dhaho undo aan dhaho labada video aan tusinay laba kala yihiin saas darteed oo jeedaa laba video ay kala yihiin marka isku soo celisidna right click daadidna status select media marka ku dhufatid videoga laba ayuu ka dhigayaa marka video geeska korshaha video ku diyaar noqdo waxaad tagaysaa produce and share ayaa tagaysaa sida videogaaga aad marka ugu dhigtid video inuu ku diyaarsan noqdo kadib waxaad tagaysaa 720 HD MP4 ayaa ku dhufanaysaa kadibna next ayaa leedahay kadib markay aartid produce name ayaa u samaysanaysaa iyo folder-ka rabtid inaad ku save garaysid kadibna finish ayaa leedahay waxaad taabanaysid oo kaliya male waa sugaysaa intuu videoga kuu sameynayo running project-ga kuu sameynayo kadib markuu video kuu diyaariyo finish ayuu kusoo saaray ama taabanaysid ilaa uu videoga kuu soo baxo kadib videoga ayaad daawanaysaa haddii uu qalad ka jiro videoga qaladkii ayaad dib u laabanaysaa mar kale ayaa haddana soo duubaysaa si videogaaga magaca mar labaad ka bedelaysaa siduu videoga kugu sameeyo kadib finish ayaa leedahay sidaas ayuu diyaar kugu yahay videogaagana إن شاء الله بإذن الله كريم ونفوضك فايدة ونسوي حقوق ولك وفايدة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وجزاكم الله خيرا